السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kaliya muuqaal cusub. waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa muuqaalkeena qiso cajiib ah. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan, fadlan waxaan kaa codsayn inaad subscribe saarto, like-tana saarto. ku soo dhawaada muuqaalka maanta. nin dhakhtar ah ayaa waxa uu jeclaaday in uu qurxiyo gurigiisa, isla markaana waxa uu u baahday ragga qurxiya guryaha ibkiis, kaasoo xiriir wanaagsan la leh ragga guryaha qurxiya. waxa uu u soo diray 2 nin si ay ugu qabtaan shaqadiisa. labada nin mid aad ayuu u xoog badan yahay, uu dheer yahay, awood badanna waa uu leeyahay. midka kale aad ayuu u dhuuban yahay, muuqaalkiisana indhuhu kuma qanci karaan. labada nin da'dooda waxaa lagu qiyaasi karaa in ay kontomiyaha dhaafeen. labada nin midkood aad ayuu u gaaban yahay, waa uu dhuuban yahay, jidhkiisuna aad ayuu daciif u yahay, halka ninka kale uu yahay mid aad u dheer, xoog badan, awoodna leh. ninkii guriga lahaa waxa uu wacay saaxiibkiis, waxa uuna weydiiyey in ay ka soo bixi karaan shaqadan adag labada nin uu u soo diray. saaxiibkiina waxa uu ku dhahay haa, way ka soo bixi karaan, weliba si degdega. ninkii guriga lahaa isagoo aan ku qanacsan nimankan ayaa u ka sii dhaqaajiyey, waxa uuna u keenay wax kastay u baahnaayeen qalabkii lagu qurxin lahaa guriga. hawshu waxay ka socotaa qaybta sare. wakhtigu waxa uu socdoba saacado badan kadib waxaa yimaadeen ninkii guriga lahaa, isagoo isla markaana ka warwarsan in ay hawsha sideeda u qaban karaan. waxa uu soo istaagay meeshii ay hawshu ku socotay, waxauna in badan taagnaa goobtii. waxa uu arkayay nin walba hawsha uu qabanayo. ninkii dhuumnaa ee caatada ahaa keliyata waxa uu qabanayaa in uu jawaanada afka ka furo, halka ninka kale ee xoogga badnaa, dheeraa, ee awooddana lahaa uu jawaanada cabbaynayo, isla markaana xagga sare ciidda uu u qaadqaadayo. ninkii guriga iska lahaa waxa uu la yaabay sida ay hawsha u qaybsadeen. waxa uuna isdhahay sidani cadaalad ma ahan. waxa uu damcay inuu biyo u soo iibiyo, isla markaana waxa uu ka codsaday inuu midkood raaco, weliba ninka xoogga badan inuu sii raaco. waxay cagta saareen waddada. waxa uu weydiiyey qaabka ay shaqada u qaybsadeen inay cadaalad darro tahay. waxa uu ku dhahay hawsha inteedii badnayd adiga ayaa qabtay, waxyaabihii adkaana adiga keliya ayay kugu kooban yihiin, sidaasi cadaalad miya? ninkii xoogga badnaa waxa uu dhahay waan ogahay taas in aan hawsha inteeda badan anigu aan qabto, laakiinse asraaqadaydu ilaahay kasagow inta badan ninkan ayay ku xidhan tahay. waa aanan kaaga sheekaynayaa sirta ka dambaysa. maalin maalmaha ka mida ayaa waxaan raadiyey nin shuraakayla noqda, isla markaana shaqada ila qabtaa, waxoogaa yaro lacagan aan iska siiyo, laakiinse nasiib darro waan waayey. waxaan arkay ninkan oo meel iska fadhiya, waxa uuna iga codsaday inuu ila shaqeeyo. waxa aan ka xishooday lacagta aan siin lahaa wiil dhalinyaro ah, kaas oon wax qoysa iyo faamili lahayn, laakiinse isaga waxaan siin jiray shaqada aan soo qabno lacagta naga soo gashaa. lacagta marka aan u qaybinno 3 meelood meel ayaan siin jiray. waxaan in muddaaba sidaa ku wada shaqaynay. maalmaha ka mida waxaa ogaatay xaaskayga arrintaas. waxay iga codsatay in aan ninkan iska fasaxo, isla markaana ra'yigayga ayaan qaatay. waxaan bilaabay in aan ninkii buriyo, isla markaana aan ku dhaho waxaad raadsataa shaqo aan shaqadayda ahayn. isna waa uu iga tegey. waxa aan bilaabay maalintaa kadib in aan tago meelaha laga shaqaysto, isla markaana xamaaliintu ay isku yimaadaan. waxaan raadiyey shaqo, laakiinse nasiib darro cidna imay soo dalbanin. waxaan subax walba taagnaa halkaas, cid ila hadashaa xitaa ma aysan jirin. 3 bilood ayaan bilaa shaqo ahaa, wax isbeddela ma aysan dhicin. halkaas ayaan subax walba ku sii kalahayay, laakiinse nasiib darro cid shaqay dirta xitaa waan waayey. waxaan isweydiiyey sababtu maxay tahay shaqo lagu dirin laayay adigoo ah nin xoog badan, awood leh, wax kastoo loo dirna qaban kara. dhowrna shaqada ay qaban lahayeenna keligii aan qaban karo. waxaan aaday masjidka, waxaana tukaday 2 ragcadood, waxaana ka fikiray maxay tahay sababta sidan ay u dhacaysaa. kadibna waxaan ogaaday in ay sababtu tahay miskiinkii aan eryey, hadal ay iska dhahday xaaskayga awgeed. waxa aanan go'aansaday in aan raadiyo ninkii miskiinka ahaa, isla markaana waxaan tegey gurigiisii. waxaan ku dhahay walaal, isdiyaari, beritoole shaqo ayaynu aadaynaa, maanta wixii ka dambeeyana waa aynu isla shaqayn doonaa. maalintaas kadib shaqadii aanu tagnay hore ayaan laga qaatay. raggii ugu horreeyay ee goobta laga kaxaysay ayaan ku jirnay. ilaa maalintaas shaqo ma aanan waayin maalin keliyata.
markii aan ninka xidhiidhkiisa wanaajiyey, aslaaqadayda ayaa ballaaratay, amurahayga oo dhanna waa ay wanaagsanaadeen.